عون المعبود في الرد على الجاهل التكفيري مصطفى عانود. كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان، فلأنصرن الحق حتى أنني أسقو على ساداتكم بطعاني. الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني، بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني. مصطفى يرق الله متكاهي وتكفير كاهنا وعليهين قفت قرنيسي كلية كدبتكو عقيدة وعقيدة الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حلقتنا وحلقتي الشناد حلقاتك أنه قد بتجيني أما كرديني وذاتك مصطفى على عانود لبات المعمود بان ردق دحديس كسين ومركا كوباده إنو ياهي مدعان قرشدي ميد لهين يا قونتد gaarsiinaysa inuu fatwoodo ama gaarsiinaysa inuu ka hadlo masaa'ishan min a'zami umuuri diin kamida arrimaha diinta kuwada waaweyn. labadaas wasfi waxay ahaayeen koow inuu yahay nina wax garanaysa sheegnay, midda labaadna waxay ahayd inuu yahay takfiir ama takfiiri dadka gaalaysiinay khaariji ah. xalqadii ka horeysay waxaan uga soo hadalnay inuu macsida dadka ku gaalaysiiyo, taasina waa madhab al-khawarij. xalqadaana waxaanu ku cadaynaynaa sidoo kale inuu ku tilmaaman yahay usuusha khawaarijta qaar ka mid ah oo uu qabo mas'alada at-tawaqquf wa at-tabayyun. sidoo kale wuxuu qabaayoo sheegtay in ay ummadda waa Soomaalidu badankoodu inay gaala yihiin. awal haddii ikhtilaaf jiroon dad ka geli jirin, maanta waxaad fahamtay qaar badan bal inta badan ummadii ahlu shiraak inay yihiin. inaad isbaa hubiso oo iska ilaaliso adeydani kugu jirtaa. daartan Soomaaliyana inay daaro kufrin daar gaala tahay, ay meesha joogaan daartuna daaro kufri ay tahay oo taaquudku maamulayo. labada arrimood buu sheegtay. labada arrimoodna waa takfiirkii takfiiriyiinta ee jamaacatu Maxamuud Nuur Cuthmaan ay qabeen, asalkoodina khawaarijtu ay iska lahayd. dadkan islaamka ah ee islaamtinimada daahirsanaya in la gaalaysiiyo. masalada tawaqquf wa tabayyun marka qabitaanka uu qabo iyo muqaddimooyinka uu dhigtay, wuxuu dhigtay dadka badankoodu inay gaala yihiin, daartuna inay daaru kufri tahay. labada muqaddimo markuu dhigtay ayuu wuxuu ka dhaliyay axkaamta uu ka dhaliyay waxa weeye dadka degan qof aanay garanayn. marka waxa sharti inuu yaqaano waxa uu la cibaadaysanayo oo walaalaysanayo, inaanay ku daba tukan. qof tukanaya oo muslim oo tukanaya hadday u yimaadaan mar haddaanay garanaynin inaanay ku daba tukan. labo, gowraca inaanay cunin. meel baad joogtaa mushrikiin iyo muwaxidiin joogaan, waxaasoo dhan hubaal bay kaaga baahan tahay sheekh. haddaad iska ruugto day wax ilaahay khayrkii loo gowraca mushrik soo gowracay baad cunaysaa. saddex, janaasada inaanay ku tukan cidda aanay garanayn. adiga badbaadadaada maxay ku jirtaa inaad iska hubiso qofkaad la cibaadaysanayso iyo qofkaad janaasadiisa tukanayso. saacad buna wuxuu u sheegayaa arrimaha iyaga. wuxuu xarimay inay wilaayada yeeshaan dadka aanu garanayn, wilaayada inay yeeshaan oo gabdhahooda ay guuriyaan. masaa'ilka iyaga ayuu ka dhaliyay. dadka uu saa ku tilmaamay ee uu yiri badankoodu waa mushrikiin, gowracooda lama cuni karo, salaadoodana laguma daba tukan karo, jinaasadoodana lagama qayb geli karo. qofkii wadada uu ka istaagay aan ka istaagin wuxuu u yaqaanaa midaan mushrikiinta ka tabarru'in oo ka bari noqon, asagana waa ilxaqi. dadku hadday isku dhex jiraan oo ay kala baraa'a qaadan waayaan oo muwaxidiintu mushrikiinta ka guuri waayaan iyagoo u yaqaan mushrikiinna yihiin, waa israacayaan, xukunka israacinaya. ciduu soo reebayo Mustafa marka ma jirto, ciduu soo reebayo ma ay jirto. daartu wuxuu yiri waa daar kufri. sababtu waa maxay?
حكم طاغوت باكجره ما قدامه ردوبي أسجى أكتيسا حاكمك رعيضنا وإراعيا qofku doona sigamada tukanaya oo iska hubinaya marka at-tawaquf wa tabayyun waa muhiim jiddan inaad iska hubiso cid aad la cibaadeysanayso meel kasto joogto hadii ahli shiraak ay meesha joogan daartuna daarul kufr ay tahay oo taaquudku maamulayo madhabkaasina waa madhab al-khawarij isaguna waxaan marka rabnaa inaan mas'aladan at-tawaquf wa tabayyun ama qofku cid aanu garanaynin aqeedadiis iyo waxa uu yahay ee tukanaya inaanu la tukan madhabka cidda iskala waa sheegin inuu madhab al-khawarij yahay waxaan kaloo cadaynaynaa ahlu cilmigu waxay ka yiraahdeen waxaan kaloo cadaynaynaa usuusha diinta islaamka inay ka soo horjeedo usuusha diinta islaamka waxa kamid ah qaacidada ijraa'u al-a'mali ala dhawaahiriha a'maasha camalka qofku uu qabanayo daahirkeeda in lagu socodsiiyo bimaana in dadka lagu xukumo oo lagu la dhaqmo bidawaahir waxay muujistaan qawaacida usulka iyo fiqhigana kamida qaacida islaamiya oo ususha iyo qawaacida usulka iyo fiqhiga kamida qaacidada iyada waa qaacida mujmacu calayhi waxayna oranaysaa qofka waxa lagu la dhaqmaya waxa uu muujisto qofkii islaantinimo muujista islaantinimada lagu la dhaqmaya inuu muslim yahay qofkii gaalnimo muujistana gaalnimada lagu la dhaqmaya walow haba yiraahdo islaantinimada u qarsoon qofkii islaantinimo muujistana islaantinimada lagu la dhaqmaya walow yaanan ogaan sariiradiisa iyo wax u qarsoon qaacidada iyada soo sheegaya imaam an-Nawawi wuxuu leeyahay xadiidka markuu sharaxayay afala saqaqta an qalbi حديث متفق عليه يا أسامة ابن زيد رضي الله عنه مركو دلي نيكي لا إله إلا الله يري نبي عليه الصلاة والسلام وحكي قلبي سما تحدي أدوقات المركز سببته ويري ما لدفت بكاهيد مش تعوذ بكاهيد وسيفتك بغي وحلي يا إمام النووي حديث يسوق شرحي في دليل للقاعدة المعروفة وحكسوا دليل قاعدة معروفة في الفقه والأصول أن الأحكام أحكامتا يعمل فيها يقول رغم بالظواهر والله ألا يتولى السرائر ألا سرائرتا إصاقا إياه توليه وحقرصون إلهي بيوت الله سبحانه وتعالى أنه وحن كل رغمينا وأقبلينا قفك خيرنا ومجستا قفك شرنا ومجستا الأقبل منا يقال لما سيدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأصحري هذا الكاس النووي وحكي على شرح مسلم شرح مسلم مجلد كلابات صفحة بغلي الله والقرطبي رحمه الله وحليه الحديث فيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون الباطنة الخفية وحكسوا إن لقد لي أحكامتا أسباب تموقته إجلي يفيدا إيضو أن لسكم مشغولين مدى قرصون أوركا كتشرته المفهم جلد كلابات صفحة كنتن يلحق النغو قاعدة أن أهل العلم يا مسلمين وكو جمع سيين وحلي الحافظ الإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وعيكو إجماعين أحكام الدنيا إن الظاهر كالقسع الشيني وأن السرائر إلى الله عز وجل وحي قرصونا الله سبحانه وتعالى الله بندقي oo alla ku shaqaleeyay oo anagu aanan qofkan uurkiisa wax ku jira baaraynina waxa uu muujistay oo islaantinimada aan kula dhaqmayno kitaabkiisa tamhiid mujalladka 10 safxada 57 ayaa ugu noqon ka dhac qaacidadan iyo sharxeeda iyo aqwaasha ahlu cilmiga waxay ka yiraahdeen waxaan kaga hadlay radiga Hassan ilaahay subhanahu wa ta'ala noo fududeeyana soo bandhigno ee aanu ugu magac darnay as-sawaa'iq as-salafiyya على مجازفات حسان حسين التكفيرية صفحة 68 أيان وقاهضا لي وحكا دنبي قاعدة المركة ظاهر كأن لقول رغمه توقف كي يتبين كوا كسور تيدا توقف كي يتبين كوا أرانيا قفت كنيا وشهادنيا وصوميا وصلاضيا وواحد قال لما آذن أذوق كو أرق هلتكن دور عيسانها عني
هذو دنتنا كغيب قلي وايا متقنن وايا هي متقنن لكن مشركين تسكي إلى قولعودا صلاة guurkooda jinaazadooda saasu ilaalin lahayn Allah laga rabaa inaad isticmaasho tabayun iska hubina waad ku khasban tahay maadaama aad ku dhex jirto mujtamac ahlu shirki u badan yahay ilaadi taxantid waad ikhtibaartid oo waxaad adigu aaminsan tahay iyo dadka aad gaalaysiinayso inuu kula gaalaysiinayo ogaad arrinka noocaas oo kale ay Mustafa u cadeynayo waa aqeedadii khawaarijta noocyadooda qaar ka mid ah oo firqada la yiraahdo bayhasiyada iyo akhnasiyada sidaan sharci doono faafaahin doono ahlu cilmiga ka soo raraya soo kale waxay waafaqsan tahay aqeedada takfiir nimanka loo yaqaan jamaacada Maxamuud Nuur Uthman tabta ayay ugu doodayeen niqaash 2015 nagu dhaxmaray magaalada Galkacyood masaajidka Dulqarnayn internetka ku jira waana duubay tabta ayay ugu doodayeen halka iyagaaba waxaan التبين كيراهدان أما يراهدان أيقو يختبر ولا يتحامي أما يراهدان يكف ولا جتشوقي قف وسونا وسلالة يكف عنه ما مسلم ما يكف عنه حتى يختبر ومحيلاي أنه يتحانه أو ويدينه سؤالا ويدينه أهل العلم يقول لك محي كيراهدان وكقبان قف الإسلام تنمى الظاهر صدي أسادا أقول عقيدة سباطن كأه oo aadan asaga garanaynin ee calaamaadka islaamku ay ka muuqdaan ee salaadii sameynaya in lagu daba tukado maxay ka qabaan qofka isaga aan ugu horeyno al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa mujalladka koobaad safxada 190 wuxuu ku leeyahay walaw anna qawman fi safarin aw hadar walaw anna qawman dad fi safarin safar ku jira aw hadarin ama مقيمين أو أن مسافرين أهين أو غيره ائتموا هذي كدبة كذان برجل قف لا يعرفونه ويسنقرانين فأقام الصلاة صلاة وأوغو أجزاءت عنهم صلاة وكقديسة دل أما المسافرين يقوى بيوحى يتكلمين صلاة وأدم يوتكنا والله قال ما يقنا والله قال أقديسة صلاة دوب أما حضر بيتشوغينو magaaladii meel ay san garanaynin bay ka tageen qola ay san garanaynin masaajidka adimayo ka aqamaya bay afkeen waa la galeen wala tukadeen jaat an wuxuu leeyahay hadalka isagoo sii wata walaw shakku haday ka shakiyaan muslimin huwa ma muslim ba aw ghayru muslimin misa muslim maaha ajzaatuhum wa gudaysa salatuhum saladooda gudaysa wa huwa idha aqama as-salata salada haduba tukanayaba fa imaamun imaam wa muslimun fi adh-dhahir sida dhahirka ay ka muuqata حتى يعلموا إلهي وقادان أنه ليس بمسلم وقال لما يكون أركا وكدب تكنيان انت وتكنيا يسمح قال لما يكون أرك الإمام الشافعي ساسو لي مصطفى يرقل لم يتكاهي وتكفير كاهنا وعليهين مايا قفت قرنيسي كليا كدب تكون العقيدة دي في الباطن قرنيس والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وحليه مغنية مجلد كاللباد صفحة اللباطن يتضبط سوى كهالله قفك مستور الحال وقف كان لقرنين مصطفى أولياء وأكو خصمانتين توقفتين التبينتين قفك دون سيامد تكنيا واسكهو بنيا مركا التوقف والتبين ومهم جدا إن اسكهو بسعدة العبادة سنيسو ولو صلى هدوتك ده نعم خلف من يشك في إسلامه قفك كشك السنة يطلعوا من مسلم بأوسن قرنين نبعان تعقيديس فصلاته صحيحة سلاديس وصح لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إمامه مصهر مره إلا مسلم باتو كده قلت كان يمرك أداد الظاهر أنه مسلم تصلي معه وتصلي خلفه وأن لا تكن إساء قداش سنة وكنت كنيس هذا الكياس كلها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن سوء أسينا أقوال كسر رأينا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة صلاة أولية هي صفة لا تكن ضدك إلى مستفعان أولية لا تكن إلى لا يتحامه أما أولية وكو خصبنتين تبينتد توقفتد أو أكو دارتان دكيدو يا دميان أو تكنيان إن يداروا
دار كفر أي تاي وحلي شيخ الإسلام ابن تيمية سو كهالله منزلة الصلاة أي دين الإسلام كجوكت قال رحمه الله ورضي عنه إن شعار مسلمين تعالى مضى الوقرتاي الصلاة والصلاة ولهذا يعبر عنهم وحل عبر بها أيضا العبرة فيقال وحل إلى هذا اختلف أهل الصلاة هو اختلاف المسلمين سلالة مركز الشيء واختلاف المصلين مقالات الإسلاميين اختلاف المصلين مسائل كشف خلافين دكتة كذا وفي الصحيح صحيح وحكتال من صلى قفك كذا صلاتنا واستقبل قبلتنا نوجسته وأكل ذبيحتنا قورعنا عنا فذلك المسلم كاسوا مسلم له ما لنا وعن لنا وحوليه وعليه ما علينا وحكرك ساعة وحكرك يقع حديثك صحيحة وحسبتوس وياه ردي مصطفى يا رجل الله متكاه يقف قبلته وجهده تكنيه سوميه قورع مسلمين تعنيه أي ليهن ما كدبة تكنمين إما قال بقى مشركي بكل دعاء ما يمنقان لا نعرف حالك سقران مين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أسونا حليه هي سياسة جدان مسألة ذاسي ومسألة واضحة وظاهرة إن الصلاة من شعائر الدين أي تاي الإيمان الأوسط صفحة بقول كنتن يشنا يقول نقول كذا إلى بقول كنتن يتضبط هذا اللي يروح لك صورة وحليه رحمه الله تعالى يسوي الدين يقاري بالمالكية لقمدة بتكنكره مالكية لقمدة بتكنكره وكذا أيوه مركو كسوها الله أيوه يقول وكذا من قال وحلم يقفك إلى هذا لا تجوز صلاة مبنانا خلف من لا تعرف عقيدته قفك أن لقرني من عقيدتيس وما هو عليه وحو كدل سجنياي فهو قول هذا الوي لم يقله صورا أحد من المسلمين بل هو قول كخوارج التوي أخنا سيادة يبيها سيادة سيدة إيمان دونتا مختصر الفتاوى المصرية أياد وقلنا غن كذا صفحة اللي حدنا يلبو سوكا الله يا أصوش أهل السنة والجماعة وحلي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة أصوش أهل السنة والجماعة وحكم ذا أنهم يصلون إن تكنيان الجمعة والأعياد الجمعوين كي عيادة يول جماعات لا يدعون كتب ميان الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع السنة السميين من الرافضة وغيرهم فإن كان الإمام إمامك عدوية وهل كان شاهدكم نقل كان ذاتك تتيني مسطورا مدحال كيسو قبصوني لم يظهر منه بدعة سكموقا ولا فجور صلي ولغت كان خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغير من أئمة المسلمين ولم يقل موسى ولا أحد من الأئمة الأربعة أنه لا تجوز مبنانا الصلاة لقدبة كذا إلا خلف من علم باطن أمره أرن كيسا باطن كيسا إلا قرنا يموي بل ما زال المسلمون كما ينزولين من بعد نبيهم نبي قد قداش صلى الله عليه وسلم يصلون إلى كنت كان خلف المسلم كالمصفور حال كيسان لقراني ولكن إذا ظهر هذيك الموقت من المسلم بدعة أو فجور وأمكن أن يشرتقلتها الصلاة لقد كذا خلف ألا تصلى الصلاة خلف ما يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة الإمام وحليه هذه لقد بتكذو قف لأجيه إنه مبتدع يهي أما فاسق يهي iyadoo ay suurtagal tahay cid kale oo aan mubtadic faasiq ahayn in lagu dabato kada iyadoo ay suurtagal tahay salaadu waa sax وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد قولين في مذهب مالك وأحمد وأما إذا لم يمكن هذا الصورتقال عين الصلاة اللي قلت كذا إلا خلف المبتدع والفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع جمعة وإمام كذا مبتدع ياي أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى جمعة كلنا أي سنتين فهذه تم تصلى خلف المبتدع والفاجر بالقدبة تكملي عند عامة أهل السنة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيره من أهل السنة بلا خلاف عندهم وكان بعض الناس ذاتك قد وحي هايين إذا كثرت الأهواء وأهواءهم مرتبتان يحب متعل ألا يصلي إنا لقتك إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب هل كانوا قصوا عضائي هذا الشيخ الإسلام بيسان وكمي ووحو كلية الشيخ الإسلام ابن تيمية علماء قار كوضا وحي قبان وكتغين marka ay bidacdu ay badato oo beledka ay aad ugu faafto waxa mustahab ah oo istixbaabeen in aan lagu daba tukan illa qof aqeedadiisa la garanayo mooy ma aanay oran qofkii ku daba tukada qof uu san aqeedadiisa garanaynin waa gaaloobay
أما سلاجي باطل أما قال كما أنا تبرئ أرنك ما أنا أرن هذا كان أحمد بن حنبل أيا يريا لجودة بتكلم إلا قفل جرانا يمويه مركز جهمية بلطي واصح لكن إمامك وحي أجد شيء على سبيل الاستحباب سيدا ابن تيمية هل كانوا كل شيء سيدي إمامك أحمد بن حنبل ويالي مركز جهمية مقالة بغداد يكون صبضتي أن لو ويديو اللي مساجد كلا يعقم السيئة لنا مقلنا وحيري لا تصلوا خلف إلا من تعرفون عقيدته هقول بتكنين قف أيضا عقيدة سجرنين إيه مرنا ما أنا أران كمان أنا هاللينين قف مسلم وآذن جرانين قف تكنوا آذن جرانين اعتقادي إنه قال يهاي أما اعتقادي إنه صن مسلم هاي أما صلاة كجوا ستامر لكمان هاللين شغل الإسلام ابن تيمية واكن سايولي فكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل سيدا لقصر لذلك عن أحمد سيدا لقصر وأحمد بن حنبل أنه ذكر إنه الشيء لمن سأله عدي ويديسي ولم يقل أحد مبوص إنه كيرال يعني عدد قرن يسد كتكو وكدبتكو ولم يقل مؤرن أحد قفنا مؤرن أنه لا تصح الصلاة ما صحيصه إلا خلف من أعرف حاله إذا حالك سجرنا يموي خوارج باطلية ما يؤرن أهل العلم قال لك شو هل مي علم بدن با قبطبوا لي نقول لي يراهدو صفعانه iska hubintuna de waa wax badan baan ka hadalnay imaam badan baa ka hadlay ma jiraan culimo qaba waxaas aad ku tagtay waxa madhab al-khawarij way cid kale ma yaqabto hadalka sheekh al-islam ibn taymiyah majmuu' ar-rasaa'il wal masaa'il mujalladka labaad 376 ayaa ugu noqon kada marka la wuxuu yiri yajuuzu lirajuli qofka waxa u banaan an yusalli as-salawat al-khams صلاة شنطة إنه كدبة كذا والجمعة إنه كدبة كذا وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة قفصا بدعك أرج ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين وليس من شد الائتمان قفك إن كدبة كتسردقين معها أن يعلم المأموم مأمومك إنه قرنيه اعتقاد إمام كيس محوءه مسين مأموم لماذا شرد ومعها إن قرنيس إمام كاغ محور مسين مركب waxaa sharti inuu yaqaano waxa la cibaadeynayo oo walaaleysanayo ولا يمتحنه إنه امتحامه سوتشي فيقول ويرى ماذا تعتقد مع العقيدة سنت بل يصلي خلف مستور الحال قفكو صقران إنه كده بتكني قفكو ما تكني قبل هذا موت ذا أكده بتكني سوف حرانس إلى أن قال إلى أكيري وقول القائل قارب شباك يعني وقول القائل قفك هذا الكيويري لا أسلم مالي حوله يقولي بن ميو إلا لمن أعرفه إذا قراني يموي صلاة من باب أولى ويوش قارب وحيا قال أديك قف هذا قراني من حولها لعبتان إياها مكورا كنا ما يذيه هذا صلاة الشيء قف هذا قراني من صلاة دقوا أمنيسا حولها بكم أمنتي شو شبه وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه ومراد إلا لمن أعرفه ومراده لتشات سوحوي لا أصلي كنت كنمي خلف من لا أعرفه كما لا أصلي مسانا وجودي بين مالي إلا لمن أعرفه كلام جاهل ويجب ووح مقراته وركد ويجب لم يقوله مؤرا أحد من أئمة الإسلام عد أئمة المسلمين كم ذي ورقة مؤرا فإن المال حوله إذا أودعه هدو أديبه الرجل المجهول ننو صقران إن هدو أديبته فقد يخونه فيه وخيانة كراه وقد يضيعه وأنا ضيع كراه يسخياننا وضيع كراه وأما الإمام إمامك فلو أخطأ هدو خلدمه أو نسي أمامه المامه لم يؤخذ بذلك المأموم مأمومك الله ما يشت إمامك إن تجيني صلاة الظهر قد فتح على المام مأمومكم يا الله يستعصي الله ما يشت هذا قال لي ما قد صنع منافق ويا إن تجيني أنا إسلامتنا ما نضاعت سمنا أنا الله يستع ما يوحى قد صن وكاسي مجموع الفتاوى يشيخ كل ياهي مجلد كلواتن يصدح صفحة صدح بقول كنتني يكو إلى صدح بقول كنتني يلعب بلغون نقل وحلا مرحلة ومن أنكر مذهب الروافض روافض مذهب كذا قف في إنكاره وهو لا يصلي الجمعة والجماعة سواء الجمعة يا جماعة تكنين وهي ضدك قران ومي ومعولة ما قراني وجماعة قال ما قراني بل يكفر المسلمين مسلمين تقاليسين فقد وقع وكل عي في مثل مذهب الروافض روافض مذهب كذا وكلو كل عي فإن أعظم ما أنكره أهل السنة عليه أهل السنة والجماعة وحيكون إنكرين وحكم ذا الروافض وحيكون إنكرين تركهم كتجدوا الجمعة والجماعة وتكفير الجمهور
iyo dadka badankooda inay gaalaysiiyaan nimankan takfiirka in masaajidda jamaacadiga laga aqmayo baana iimaanayn jumcada la tukanayaan jamaacana la tukanayaan dadka waayo dadku imma waa mid ay gaalnimadiisa hubsadeen waa imma mid aanay garanaynin way dooda dhexdeeda wax kala ayaan dadka gaalaysiisan waranaga dadka ma gaalaysin dadkan maxay yihiin ma garanayno maxaa ka wadaan ma garanayno waa ilma adeertiin waa tolkiin waa dadka la degan ma garanayno maxaa ka wadaan muslim inay yihiin ma garanayno oo salaadan iyo shahaadadan iyo tawxiidkan waxa uu tarimayaan miya meelaha la isku khilaafsan yahay ama lagu kala boodsan yahay waxa kamid ah maxay islaantinimada ku sugnaataa maxay islaantinimada ku sugnaataa taa weeye masaa'ilka ugu muhiimsan oo aanay takfiirku garanaynin kana doorteen madhab al-khawarij ay ka doorteen wax islaantinimada ay ku sugnaato halka waxa kaaga cadaatay madhab ahli al-haq iyo madhab ahli sunnah wal jamaa iyo aqwaashoodii waxaana ugu dambaysiinaya qowlka uu leeyahay al-imam uu leeyahay ibn abi al-izz al-hanafi rahimahullahu ta'ala marka uu ka hadlayo soo ka hadlaya salaada qofka lagu daba tukanayo wuxuu leeyahay hadalka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah hadal la macna oo la mid ah ayuu leeyahay oo kaga hadlaya wuxuu leeyahay qala walaysa min shard al-i'timam ma'muumnimadiisa shardigeeda kamid ma an ya'lam al-ma'muum i'timamku dayashada ina imaamku ku daba tukato shardigi ma an ya'lam al-ma'muum ma'muumku inuu garanayo i'tiqaada imaamkiisu uu xaqiidaysan yahay wala an yamtahinahu inuu imtixaamana shardi ma oo fa yaqulu ku yiraahdo ma la ta'taqid bal yusalli wa tukaniya khalfa mastur al-hal mid xaaladiisu ay qarsoontahay ugu daba tukanayay waxa ugu noqon kartaa sharh Tahawiya mujalladka 2 safxada 531 ee ibn abi al-izz hal mujalladna waa lagu daabacay labana waa lagu daabacay warka marka halka waxa kaga soo baxay qowlka ahlu cilmigu iyo qowlka ahlu haqq inay qabaan oo uu yahay qofka haddaan gaalnimo lagu hubsan in lagu daba tukanayo qofkii aad hubtid inuu muslim yahay min baabi awla khilaafina kuma jiro qofkii aad hubtid inuu gaal yahayna ku daba tukan maysid qofkii tukanaya ee aadan garanaynin xaalkiisu ka qabsan yahayna waa ku daba tukanaysaa waayo salaadu waa min a'zami sha'air al-islam sha'airta islaamka kuwooda ugu waaweyn mid kamid ah rugniga ma ku fariis waayo waxaanu niri aqeedadan waa aqeedatul khawarij wa takfir khawarij qabta ayaanu wax ka tilmaamayna aqeedadan waxa qaba firqa kamid ah firqada khawarij oo la yiraahdo al-bayhasiyya atba'u abi bayhas Abu al-Hasan al-Ash'ari oo Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah uu leeyahay waa ninka dadka ugu badiya maqaalaadka islaamiyiinta maqaalaadka iyo khilaafaadka islaamiyiinta ee dhanka aqeedada dadka ugu badiyo kamid yahay leh ama qofka ugu badiya wuxuu ka soo raraya waxa ay qabaan firqadan bayhasiyada asagu magaciisa ma sheegin abi bayhas kuyadaas ayuu sheegay wuxuuna ka dhigay firqa mustaqilla inay tahay oo min firq al-khawarij ar-ra'isiyya laakiin ibn Hazm wuxuu hoos geynaya firqa la yiraahdo as-safariyya min al-khawarij waxa la yiraahdaa baa la yahay abi bayhas haysam ibn amir Abdul Qahir al-Jurjani ibn amir ayuu culimo kale ahli cilmiga kamidana waxay yiraahdeen haysam ibn jabir baliya ibn jabir Abu al-Hasan soo ka sheekeynaya ninka wuxuu yiri وحكي أن البيهسية تقول بقتل أهل القبلة بيهسية waxay ku tagtay oo laga sheegay inay qabaan بقتل أهل القبلة أهل القبلة in la dilo وأخذ أموالهم xoolahooda in la qaato وترك الصلاة in la iska daayo إلا خلف من تعرف cida ay garanaysa maahan cid kale inay ku daba tukan bay qabta ay البيهسية بيهسية cid ay garanayso in bay ku daba tukataa day waa ku inkirsan wax la diido oo la inkiro oo قول مبتدع خوارجته بيهسيده إلا يمادين aan ahayn haduu qowlku yahay miyay ku inkiri lahaayeen biyasiyada qabtay dhabde wuxuu kale yiri mar kale soo ka sheekanay waqalat soo sheegaya firqa kamida firq al-bayhasiyya waqalat waxay tiri ad-daru daru shirkin dartu wa dar shirk wa ahluha jami'an mushrikun dadko dhanna waa mushrikiin mustafa wuxuu yiri dartu wa daru shirki way dar kufrin weeyabi dadka joogana badankooda waa mushrikiin bi nimankan maxay yiraahdeen ayaguna sidaas oo kale hadalka ka dhow qala wa tarakat as-salata illa khalfa man ta'rif waxayna ka tagtay salaadi illa qof ay garanayaan way
سومارت بيهسيدي وحا كميدا فرقة بيهسيدة فرقة كدلاعدي وحا كميدا فرقة العوفية وحي يراهدين إذا كفر الإمام كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد هدي أي مدحوينو قالوا به شعبكنا وقال يراهد أساقنا كان شوقيا كان مغان بيراهد أساقنا في نكا مصطفى وحوليه هاي دارت وحيالي كو قالوا ذا مركو الشيء أيوه وأيوه حقوق كفص على حقوق طاغوت مشركين نوا كبحان دارت ودار كفر ويب نكان مركو بيهسوي بيهسيادنا لنك الشرك إيا قاليسينتا أزارقada kama sokeeyaan waxa la qaba oo ayaguna sidaas oo kale ku tagay firqad la yiraahdo al-Akhnasiyya atba'u Akhnas ibn Qays markuu ka sheekeynaya Abu al-Hasan al-Ash'ari wixii Akhnasiyada yatawaqafuna an jami'i man fi dar at-tuqya min muntahil al-islam dadka islaantinimada u nisba sheeganaya oo dar tuqyada jooga dar tuqyada waa markaysan ayagu daar u gaar lahayn ee daaraha kale muslimku degan yahay wa ahlul qibla illa man qad arifu minhu iimaana qof iimaankiisa garanayaan mooyi fayatawallawnahu alayhi iimaanka ay ku garteen ayay uga wali dhiganayaan aw kufran ama kufri fayatabarrauna minhu liajlihi saw wa yuharrimuna al-ightiyal kuwa hore waa dhaaman kuwan waxay xarimayaan shirqoolada wal qatl fi sirri si hoos in qofka loo dilo maqaalaat al-islaamiyyin buu Akhnasiyiinta ku sheegay oo kaga hadlay mujalladka koowaad safxada 9 iyo 2 ayuu kaga hadlay ama bayhasiyada wuxuu kaga hadlayaa maqaalaat al-islaamiyyin mujalladka koowaad safxada 13 wuxuu kaloo kaga hadlayaa aqeedada uu sheegay mujalladka koowaad safxada 110 halka ayaad ugu noqonaysaa halka waxa kaaga cadaatay qowlku inuu yahay qowlkee yaa iska leh khawaarij nimanka la yahay bayhasiyo iyo Akhnasiyada ayaa ku tagay waxa sidoo kale qaba takfiirka Maxamed Nuur Uthman Nawaak isagoo markiis galaankiisa darsanahay Maxamed Nuur Uthman wuxuu leeyahay oo munadirka u ah firqada takfiirka ee Soomaaliya degan wuxuu sheegayaa kitaab uu bixiyay bayaanu i'tiqaad ahli sunnah oo ay munaan lahayd bayaanu i'tiqaad al-khawarij inuu bixiyay waayo warkii khawarijta oo tabtiisi ayuu meesha ku soo qoraya bayhasiyadii iyo kulligood إذا كفر الإيمان وكفر الرعية سيدا يقول قرانك مركو قال لي مركا مسألة ذا وحلي سوى الشيء إليه أتي لنا يا أهل السنة وحلي كل هو في الغد السي وعورك وقران يؤمنون بأن المسلم الذي في دار الكفر والتي تعلو عليها كلمة الكفر إذا قام إلى الدعوة إلى الله ووالى من علم بإسلامه وعامل من لم يعلم بإسلامه معاملة أهل دار الكفر في النكاح والذبائح والجنائز والإمامة في الصلاة وغير ذلك أنه على صراط الله كله وعلى هدى مستقيم ولا يجوز القول بأنه كفر مسلمين أو ظلم أبرياء من الكفر ويؤمنون وحلم يسيه حيلة وتكفير بأن المسلم مسلم الذي في دار الكفر شوقه أكتوض الصوماليا وكدار الكفر صفنا أكتس الصوماليا وقري قالوا dadka joogana gaalay u badan yihiin manikaasi soo ma aragtid meesha uu takfiir ka gaaray waa nooc ugu daran Soomaaliya muxuu ka dhigay guri gaalo dadka joogana badankooda gaalo wuxuu yiri markaa ninkaasina Maxamed Nuur والتي تعلو في دار الكفر هدو جوجب في دار الكفر والتي دارتي تعلو عليها كلمة الكفر كلمة قالنمadu ay ku sareyso إذا قام هدو استاغو إلى الدعوة إلى الله ووالا وحريريه بمن علم بإسلامه عدو إسلامتنمديسا garanay halka waay waamala uu kula dhaqmo man lam ya'lam bi islaamihi qofusan islaamtinimadiisa asoo garanay ay qof tukanay oo shahaadanay oo qiblada u jeeda islaamtinimada ay ka raadinayaan Maxamed Nuur Uthman iyo Mustafa oo ay leeyihiin ilaa aan ogaano yeelimayno maxay waa islaamtinimada iyada u gaar waa islaamtinimada khawaarij waa islaamtinimada takfiir taawi ilaa ayagu shuruudo ay wataan iyo qawaaniin ay wataan ay weydiistaan oo ay ka saxaan agtooda kama aha muslimka ma ninkan marka waa takfiirka nooc rasmi ah ee la yaqaanay ku daba tukanmayo muslimiintii gowracooda cunumayo kuna u dul tukanmayo haday dhintaan su'aal saa loo weydiiyay oo ay ku saabsan yihiin magaalada xamar oo waxa lagu yiri hilibkeeda meel baa lagu soo qalaa kawaan hilibka ma cuna karana ma cunaysan oo magaala soo gowracday ma gaaliya muslim oo isku dhex jiray wuxuu soo gowracay la garanay waxa la gowraca meel baa joogta mushrikiin muwaxidiin joogan
waxaasoo dhan hubaal bay kaaga baahan tahay sheekh haddaad iska ruugto dad wax ilaahay khayrkii loo gowraca mushrik soo gowracay baad cunaysaa waayo haddaan soo maray masaajid aanan garanaynin qofka tujinayay ma muwaxida mise waa mushrik aanan garanayn laakiin uu tukanayo qofka aanan garanaynin buu leeyahay ma ku daba tukan kara ma tawaquf iyo tabayun baa u baahan tahay tawaquf iyo tabayun bisariix al-ibaara ku sheegay qofku doona sigama daba tukanaya oo iska hubinaya marka at-tawaquf wa tabayun waa muhiim jiddan inaad iska hubiso cidda aad la cibaadeysanayso tawaquf wa tabayunna waa madhabka noocaas oo kala rag badan baana soo qaatay shukri mustafa ayaa kamid ah jamaacadiisa oo jamaacatul hijra wa takfir ayagu ay ka soo jeedaan oo madhabkiisa rasmi ah aan ku noqdo marka hadalkiisa wuxuu leeyahay waamala oo kula muaamaloodo man lam ya'lam bi islaamihi idusan islaamtinimadiisa garanayn muaamalata ahli daar al-kufr dadka degan daar al-kufriga muaamaladooda kula dhaqmo fi nikaahi guursiga والذبائح gowraca والجنازة والإمامة في الصلاة وركان محاولة تكون ويدا ما قال با ما قال ما مسلم با ما وهذا إسلام تنملا كلوات واحد كلوات كدونه يصير معيت مشكلات واحد كتعلنت لما كان أكتر محمود نور عثمان يا جماعة السنة كان أنا أب وقلت أثر وحنا مالينا يجي يعني وهي عقيدة سوى تبطولي ما قبان إلا إله إلا الله دين تلقوا صقل ما قبان الصلاة تلقوا صقل ما قبان وحياله لربي إن دين تلقوا صقل دين تإنه شاكتي إن لقوا صقل ما يقبان سادت أيسن وجود بتكنين إلا قف أيجو أنت اتحامين وجادان وح أيجو الدون إنه أمسية عقيدة ولا أمسية بس هذا مركا نوع عص أي قبا كتبتيسا أو كم دي محمود نور عثمان وقري كتاب اللي يلا دروس في التوحيد ساسك تقريريني حكم من لا إله إلا الله ساسك تقريريني إن لا إله إلا الله لجوسه قلين وصلاة لجوسه قلين دين الإسلام حكم تقريريني يا متكلو بحيي صيانة الفكر من صيغ مرجئة العصر عوانا لا أكل بالدلن مضمونكم هو اسكمد وأنا لغن كخوارج يا أهل باطل هذا الموضوع بو وحكا قرا يسوي العلية مصطفى لفت الكيسة هذا الكيسة من هو انت تنهدى دغيستي هذا الكي مكو شيغي تنهدى دغيستي انت مكو شيغ هل شيء يسوي العليني او wax weyn oo kaaga dhigay dhaqanka waxa asaguna iska leh xasaan hal madmuun ayuu ku cilcilinay هل مضمون أيوكو العلي المباحث المشرقية ثم اللبنانية ثم الجيبوتية ثم الجواب المسبوك ثم محاضرين في صودا أيضا وهل موضوع كاغادق يكون كن نوع وكاغادق شو بدرن تامر كوام حي وأنهض بدن على سكت الصو خفك يعني نكان وبحاثة سلو يلا وموضوع واحد هذا العوان واضحني إذا مركز كتب كان لفتر كذا وأسكوا مضمون دروس في التوحيد حكم من قال لا إله إلا الله صيانة الفكر من صيغ مرجئة العصر أنت دور النقلي بحاجة كسر رأي أيجي بالكن كأنه أيجي بحدا حدا ورهراني أيجي بالكن صر رأي هذا ميل وجيني قول البغوي وعياض والنقل عن شافعي ونقل عن ابن حجر أفرت النقلي ومر هل كان لجوجو قرية مر حاجة لجوجو شو قرية مر حاجة لجوجو شو قرية حسن نوام حي لو يطبن نقلي بو هيستا حسن لو يطبن كان نقلي بو حقوق صرارة يجيب تيجا هذا نوال تجاي مسواك نسقيه الجواب المسبوق كأني مس مباحث المشرقية كولا مسايد يوم محاضرة وبحيي أئمة الدعوة النجدية مسوات نسقو منهج الهدى مع إساس بين الغلاة والجفاء يجي هذا عوان مكاغا دغاي ما قرأتوا مركب maxay oranayeen الشيخ البحاث بقية السلف عيلته أنا بقية السلف الطالح بقية السلف الصالح ما أنا السلف الطالح لا قوالت وقت السلف كي جوغنا يولف تخذ هو السلف لكن هو معي السلف الطالح العاسل مسألة وحي حرير لا ليض مسألة التوقف كي يتبينكو وحي حرير لا ليض هاي حب بدن وحي لا ليض هاي إسلام في النبض قفكم محاكو سجناتها إسلام في النبض قفكم محاكو سجناتها وأنا ميلاكو كلا تغيين إسلام في النبض قفكم محاكو سجناته إيا أغواش أهل العلم فيها بحث عن هذا الشيء الصواعق السلفية على مجازفات حسان حسين التكفيرية صفحة سديتني يشن إلى بغور 8 صدح أيام نوقع هذا كفا فاهمي
إلى محرجين كبرينا إن سوى تام ضميستران ونوية سرينا نشرينه كتاب كايساق خلاصة مركا كان مذهب كيسية منهج كيس ومنهج كاوي لا يعمل مركا وحار رابين نسك قالسي رابين نسك قالسي عقيدة دانواية وعقيدة دي خوارج السيدة ذات كيسان عقيدة دي تكفير خلال هذا محمود نور عثمان نخريني كتاب كيسا بيان اعتقاد أهل السنة وبعيي وحكاية لرسالة دي ساس قابان صفحة تضباطا يشن يكاية صفحة تضباطا يشن وتنورتي طال صفحة محوف تضباطا يشن ترقيم بقوة ذا لا بقول لحدني يلا مسألة لا بقول لحدني يلا بعد شو كجاه يعني ترقيم مجال كتابكو ترقيم كابلنا هذا لكن قبل يجلس بقول صفحة مرة ما وتضباطا يسديد صفحوي تضباطا يسديد صفحوي هذا شو تقرير نكان مثلا النوع عصا كلاوي معاود حيا سجاي تكفير تنظير كان مسائل كوحد حيا مال مرة دانو ذاك جور عود عنين مرة دانو جناسة كده بتكنين مرة دو صلاة ده كده بتكنين مرة بعدو صاء تقرير مرة دو توقف كي يتبين كي تقريرنا يو قضاء نكان ونكان مركا خارجي جاي تكفير يوي مذهب كا لا سوكر دحلي وبيهسية ده يا خنسية ده يو عوفية من البيهسية أي كتجين يو سفلية الله نسبية يوم بعده أو شكر المصطفى ومحمود نور عثمان من قبوي ميانو مركب من نين إلا يله هو تكفير إن كان وخارجي بمعنى الكلمة خارجي بمعنى الكلمة مسلمين تنسدا وقالي سيني سياس بحي وقالي سيني والله أعلم ما كان يبشر عون سبحانه